Hi guys, waa anigoo Samiira janaalkan waa fanaanku. Maanta waxaa inoo wadaa hilib duban. Meeshan waxaa ku haysanaa hilib ari, lug iyo jeeni. Waa soo gogoostay iyo waxaa ku haysanaa xaraf-xarafta ku karin lahayn liin dhanaan, basbaas, cusbo, filfil, warqad qaar, rosemary, dhagayare, yaanyo. Waxaan rabaa hilibka inaan maraq ka baxsano. Pressure cooker dabka ku soo saaranaynaa. Pressure cooker ku soo shubnaa hilibkeena caraf-caraftiisa biyo ku darsanaa. Waxaan rabnaa inuu maraq looga baxo, hilibkana noo carfo oo noo bislaado bis. hilibka waa noo soo bislaaday. Meeshan waxaa ku diyaarsanaynaa xawaajiyaal. Waxaa ku soo darsaday kurkum, oregano iyo maxaa la dhahaa cusbo. Meeshan waxaa noogu diyaarsan baqli aan ku soo qasanay saliid saytuun iyo khal iyo liin dhanaan. Waa ku soo shubtay, waa isku soo qasay. Waxaa ku darsan meeshan soy sauce iyo dibis rumaan. Labadooda ku soo darsanay. Bacdimaa hilibka ku soo ridanaynaa, hilibka marmarinaynaa, si fiican isku dhex geliyeynaa. Hilibka gargaarsiinaa xawaajiyadeena kulli. hadda halkan soo gaartay aad video like saarin laabo like soo saar channelkana subscribe siin. Waxaa ku soo shubanay saxanka foornada ku geli lahaa. Waxaa kor ka soo saartay barbarooni si warwareeg u soo gogoostay iyo basal. Bastiirkana ku soo daboolinayna si loogu guuro oo loogu bislaado kor iyo hoos noogu gaduuto. Foornadeena gashan waa ka soo baxsanay asigoo qurux badan saan ku soo baxay quruxda badan oo gaduudan. Lafta iyo hilibku waa isdaayeen ku dhahay biseel farta ku gooso waaye maasha Allah. haddaad ku cusub tahay janaalka subscribe saar si ugu mid noqota asxaabta fan aan cook kambaleelka furo si ku soo gaaraan wax walba oo cusub. Videoga like saar share garee si asxaabta fan aan cook bataan.